14 Oktoobar waa maalin murugo iyo urkutaalo ku noqotay ummadda Soomaaliyeed. Waa maalin mugdi gelisay nolosha kumanaan Soomaali ah, boqolaal kalena naftooda ay ku waayeen qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. Muddo ku siman 3 sano ayaa laga joogaa ilaa iyo iminkane waa mahadho barmadow ku noqotay ummadda Soomaaliyeed. Saameyntii uu geystay qaraxaasi mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee maamulka Hirshabelle ayaa mar kale tacsi tiiraanyo leh la qaybsaday dadkii naftooda ku waayay qaraxii Soobe, fariin adagna u diray dadkii ka dambeeyay qaraxii khasaaraha badan geystay ee ka dhacay isgoyska Soobe oo ka mid ah isgoysyada ugu mashquulka badan ee magaalada Muqdisho. marka waxaan halkan macnaha baaq ugu dirayaa inta kale inaan u duceyno walaalaheen ku geeriyooday maanta oo kale waa maalin aad iyo aad xasuus leh. waxay nagu leeyihiin duco inta ku geeriyootay meeshaas ee kumanaanka qof. marka waxaan alla ugu baryaynaa in jannadii firdawsi Ilaahay ka waraabiyo intii meeshaas ku dhimatay. duco ayaan u haynaa markastana u duceynaa. taariikh ahaan waa maalin madow oo qulubta ummadda muslimka iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ku madow. intii meeshaas ku dhimato kumanaanka qof ahayd intii ku dhaawacantay intii dhimatayna Allah u naxariisto, intii ku dhaawacantayna Allah u boogadhayo. wali dhaawacooda sii jiro Ilaahay caafimaad taam ah ha siiyo. run ahaantii waxay ahayd arin aad iyo aad argagax u leh ahayd. run ahaantii lagana filayay waxaas iyo wax ka daran inay dhacaan ummadda Soomaaliyeed. ani hal baaqaha u jeedina waa u jeedin dadkaas manaxayaasha ah wax ay noo reebanayaan malahan. ummadda Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan ee arintaas ay iska qabtaan. geeridaas guri kasta oo Soomaaliyeed way taabatay. maanta guri Soomaaliyeed ee ka tagtay ee taawani malahan, ama ehelkiisa ku dhinto ku dhaawacmay ama dad asxaabihiina ku dhinto ku dhaawacmay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan rabaa maanta in aan ka tacsiyeyno dhibaatadii xoog badneed ee cusleed ee gilgishay Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan caasimadii Muqdisho 14 Oktoobar ee ay ku naf waayeen boqolaalka ruux kuna dhaawacmeen boqolaal kale ee ruux ee Soomaaliyeed ee shacab ah ee waxba aanan galabsan ee nolol maalmeedkoodii kala duwanaayay hawl maalmeedkoodii hadii ay tahay qaybihii waxbarashadii ganacsigii gaadiidleyday culumadii dhammaan bulshadii Soomaaliyeed ee ku nooleed caasimadda Muqdisho dhibaatadii ka gaartay qaraxii muxuu ahaayay cuslaa ee manaxayaasha Soomaaliyeed, kuwa ka shaqeeya dabargoynta Soomaaliyeed, kuwa ka shaqeeya sharaf xumida Soomaaliyeed, kuwa ka shaqeeya muxuu ahaayay la dagaalanka nolosha bini'aadanimada ee ay geysteen ee xanuunka badnaa. Xuseen Xasan Badbaado, Somali News TV, Jowhar.